waxa uu nolosha ka lahaa rajo weyn laakiin hadda waxa uu noqday mid xaaladiisu ay xun tahay waxaanu ka waayay mid kamid ah laxaadkiisii xabad ku dhacday awgeed toddobaadkan gudihiisa iyo mid kamid ah ciidamada booliska degmada Togwajaale lugta xabad kaga dhuftay Cawaale oo kamid ah dhalinyarada ku nool degmada Togwajaale hadda Cawaale waxa uu noqday mid sidaasi ku waayay laxaadkiisii oo curyaamay xabadan uu ku dhuftay mid kamid ah ciidamada booliska Togwajaale ayaa sababtay in lugta laga jaro kuwan waa qaar kamid ah dhalinyarada ku nool degmada Togwajaale oo dareen murugal u muujiyay Cawaale oo la jilaha waxaanay xukuumadda ugu baaqeen Cawaale uu cadaalad helo dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa kamid ah hadaladoodii habeenka dhaweyda xabadu ku dhacday anagoo dhalinyaradii magaalada waxaanu maanta urtayada u muujinana Cawaale Carab oo faraxinana la dareen oo la xanuunsanano sida uu xanuunsanayo la xanuunsanano Cawaale waxa ku dhacday gacanka xaq daran mana aqbalana mana ogolin in mar walba intuu qof banaanka lagu toogto in la yiraahdo laga xaalay anagu dhalinyaro ahaan maanta Cawaale aad baan uga xunaay filkiisa ku dhacay kulli wax qornaabay heedo dhici lahaa inay dhacdo laakiin waxaanu leenahay anagu waxaanu diidanahay Cawaale in maanta la dhayalsado oo aan la agmarin oo arrinkiisa laga kuurgeli waayo ayaa diidanahay Cawaale waxaan qadarku waa dhacayo wax walo qofka uu qoran Ilaahay baa u qoray markuu dhashay intuu u dhalan laakiin qadarku uu dhacay lama yiraahdo sida loo xaliyaabo la yiraahdo talaan waxaan ognahay inay hoggaanka ciidanka ugu sareeya in Cawaale agmarina taasina waxba ka ogaanin waxaanu leenahay hoggaanka ciidanka ugu sareeya iyo madaxweynaha qaranka in Cawaale inuu cadaalad yahay Cawaale gacanka xaq daran oo bilaa sabab without reason baa Cawaale ugu dhacday xabada sababteedu waa in la cadeeyo marka anagu dhalinyaradii degmada Togwajaale ku miday dhalinyaro ahaan oo aan reer lahayn oo xaafad u hadlaynin maanta waxaanu ku hadlanaa arrinka Cawaale Carab gaar Cawaale maanta arrinkiisu dawladdu u yaala xukuumaddu yaal reer uma yaalo hadii maanta la yiraahdo reer buu yaala anagu arrinka aqbali ma hadaan nahay dhalinyaradii degmada Cawaale wuxuu ahaa qof naga shalay toosida maanta anagu baanu u faraxsan oo kubadana la ciyaarayo ciyaarteena la maanta lugtii baa la gooyay waxaanu u baahanahay xukuumaddu inay bedelkeedii iyadu keento Cawaale qof nolosha han kala buu hayo hadaf kale oo doonayay inuu fishankiisa fushado oo hawlo badan oo u yaalay sidoo uu fushan lahaa maanta laakiin ma fushan karo nolosha wuxuu ka leeyahay hadaf weyn ka yeelan kara laakiin Cawaale arrinkiisu dawladda u taatusaay inay wax qiimo oo dhalinyaradu agtooda kale iska daani jirin waxa la yiraahdaa mar walba boolisku waa saaxiibka dadweynaha laakiin iminka boolisku ma aha saaxiibka dadweynaha waayo boolisku maanta isaga rabshada abuuraya without reason iska tooganay xaafadan yara ma awoodo maanta dhakhtarka uu iyo xaaladda uu ku sugan yahay inay iyadu maanta haday noqoto dhakhtariyada haday noqoto wax kale oo nafaqaaba xaafadoodu maanta ma awoodo xukuumadda u taala arrinkaas xukuumadii ka jawaabi lahayd xataa wax jawaabo degdeg kama hayaan ilaa maanta toddobaad ku dhawaad buu dhakhtarka ku jira cid hoggaanka ciidanka oo saro oo maanta la taaban karo xaafadiinta duristaada tiri wana oo taliyaha ahayn saldhiga oo tiri dana Cawaale wuxuu qabaayo si bal xaaladiina ka warrama tiri wali lama inaan kii hore ka horeeyay iyana ka maanta aanu dareenkooga cad oo maanta waxa si uu la ka saddeq qof walba mas'uul ka yahay in iska joogay meel banaana intuu qori laga jira hadana hadhow la yiraahdo wali banaanka ku dilay nin banaanka qori ka jaray qaada inta halka inta dhakhtar la sii maray qofkii dhigay hadhow la yiraahdo saas ugu laxad beel waxaan anagu halkan ka filanay waxa ugu hooseeyay halkan taliyaha jooga oo ma hadna qorta taliyaha gudoomiyaha waan hadna rag iyagu inta boqdeen tagan xaaladii soo wareysay ka warhay wax dhaliilana anagu ma saano ma haysana maanta taliyaha gudoomiyaha ma haysan laakiin hawsheedu gudoomiyaha taliyaha way ka sareysaan waxaan u baahan inuu madaxweynaha u sareeyo inuu madaxweynaha codkayga maqlaan u baahan maanta anagu halkan isma nimin rabsho sameeyna taariikhna booq sameeyna ma nimin liya ta waxaan nimin dareenkayga cabirno aan ka xunaay dhamaantay wax halka taagan rag iyo weyn beenana ka xunaay arrinta dhacay maanta hadeena adiga ku dhicin waxa ku soo wax dhacay walaalkaaga ku dhacay hadeena adiga ku dhicin waxa ku dhacay saaxiibkaaga waxaan halkaas ku ka keenay waxa weyn dareenka in maanta cabirno shucuurtayda ka xunaayna ka dhaawac soo gaaray waliba si khaas noo taabanay macalinkiisa intaas oo dhan baan kubada soo ciyaarnay intaas oo dhan baan soo saaxiibayn anaga si gaar ah noo taabanay waxaan rajaynaynaa hawgo hooseeya taliyaha maanta magaalada jooga uguna sareeyana ka ciidan uguna sareey madaxweynuhu inta waxaan ka diiday in talaamada hoos maasay ka mid tahay maxkamadii meel walba la maray in kiiska Cawaalaniyo aan la dheersano si degdeg ah si maanta intii maalinta dhawil la dilay looga leeyahay Allah naxariisay in sida Cawaalan kiiskiisa si degdeg ah loo waafaqayo oo cadaaladiisa arana maanta kaliya tawar tahriib uu dhaqaaqay tahriib ayuu dhaqan midka saaka diilay hooyo ku guuxasay ku ooyaysan tasaasta saale iyo curyaanka Cawaale waa lambarkii afraad weeye Cawaale Carab waa lambarkii afraad weeye kow maaha laba maaha saddex maaha waa lambarkii afraad ee dhalinyaro ee u bixiya waxa weeye waxaanu doonaynaa oo saaka madaxweynaha ka doonaynaa in uu eego saaka degmada Togwajaale hoosin weyn inuu qashin ku soo xaadiriyo mar walba ma Togwajaale magaalo ma odayaal male cid u hadasho male qareen male madaxweynaha ku miciinsanayna maanta inaan ka yar laxaadkiisa beela ee yar ciyaalka agoonka ee waxaan ku raaan reerkoog maanta awooday adu maanta madaxweynaha ku miciinsanaya wasiid maxamed madar sayid hanad real TV magaalada ganacsiyeedka degmada Togwajaale